munaasabad si heersara loo soo agaasimay oo lagu dhiirigelinayo ardayda wax ka barata dugsiga Ubaya bin Kacab ee Kuwait Primary Secondary School ee magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay xarunta dugsigu uu ku leeyahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. munaasabadan oo si gaar ah loogu dhiirigelinayay ardayda safafka hore ka soo galay imtixaanaadkii dugsiga laga qaaday iyo sidoo kale ardaydii ku guuleysatay tartamadii kala duwan ee uu qabtay dugsiga ayaa ka dhacday xarunta dugsiga iyadoo munaasabadan ay goobjoog ahaayeen dhammaan ardayda kala dhigata qaybaha kala gedisan ee dugsigu uu shaqeeyo ee gelinka hore gelinka dambe iyo maalmaha khamiista iyo jimcada. dad kala duwan oo marti sharaf ah maamulka dugsiga macallimiin ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa goobjoog u ahaa munaasabadan lagu dhiirigelinayo ardayda wax ka barata dugsiga Ubaya bin Kacab ee Kuwait ee magaalada Muqdisho. ugu horeyn munaasabadan waxaa hadal ka jeediyay maamulaha guud ee dugsiga Ustaad Cabdilcasiis Cumar Cusbow kaas oo ku dheeraaday dhiirigelinta ardayda iyo bogaadinta tallaabooyinka ay qaadeen ardaydu si ay u horumariyaan waxbarashada isagoo sidoo kale ku dhiirigeliyay in ardaydu ay si laba jibaaraan dadaalada kala duwan oo ay gelinayaan tacliinta iyo waxbarashada. anoo jaalskan isticmaalay kuna hadlay magaca maamulka iyo macallimiinta dugsiga Ubaya bin Kacab ee Kuwait عن همبلية أنا أبو فرحسن همبلية كتير مع قلبي كشوفت قلبي لا يهاي بعد تدريب يبعد شهاد قاعد وليش سنة كان نقول أنا ورموت كا يرسيت كا سنة بشيت كا لبلا كل ما تجي تقول كل ما تجي لهم عن الله نهاي جود بفوقنا سوشيال ميسين ما أنت كل هذه المجرمين جود بس ميسين جود بفوقنا وأنا بتابع المدني أمال المدني تبين بدنوان بولدين لكن كلية الحيوان إن أنا دكتورينو إنتو دحورنا سماسين. dhinaciisa Ustaad Ibrahim Xasan Mukhtaar oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiga Ubaya bin Kacab ee Kuwait ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xafladan iyo sababta rasmiga ah ee loo qabtay iyo muhiimadda gaarka ah ee uu fadhiso ardayda wax ka barata dugsiga. كانت كل هذا الدين حسوسنا وحسن دكتور كلام كل كلام 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 ليس يفسر كلمات دين كانت سهلة كلام وحكالم كورا كبر إسلام فسر شلات mid ka mid ah waalidiinta iyo ardaydooda dhigtaan dugsiga Ubaya bin Kacab oo munaasabada hadal kooban ka jeedisay ayaa dhiirigelisay ardayda kala duwan ee dugsigan dhigata iyada oo ku bogaadisay dugsiga Ubaya bin Kacab ee Kuwait in uu kaalin wanaagsan ka siiyo ardayda inay horumariyaan aqoontooda isla markaana la dhiso maskaxdooda si ay heer sare kaga gaaraan dhinaca tacliinta iyo waxbarashada. waxaan ka rabaa ardayda yarka soo korayo oo yaryarka waxbarashada inay si fiican u sii wataan iyo macallimiintooda ay ka dambeeyaan ay sii wataan iyaga tuuriyada iyo waqtiga ku socda inaynan eegin ay bartaan quraanka iskuulka wax walba inay bartaan baan ku dhiirigelinayaa. hooyadu waxay jeceshahay canjeer inuu midka koowaad noqdo midka koowaad hadduu noqon waayo midka labaad noqdo midka saddexaad hadduu noqon waayo midka afaraad uu noqdo inuu waxbarashada oo sida loogu dhigo wanaagga quruxda say hooyadu jeceshahay inay ku soo baxaan ay jeclaan. ugu dambeyn Ustaad Maxamed Sayid Cali oo ah maamulaha dugsigan qaybtiisa khamiista iyo jimcada ayaa hadal ka jeediyay munaasabada isaga oo bogaadiya ardayda macallimiinta maamulka iyo qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabada kuna dhiirigeliyay ardayda inay si laba jibaaraan dadaaladooda. waxaan halkaan kaga hambalyeelayaa ardayda kaalmaha hore ee imtixaanka ka gashay waxaan leeyahay maanta waa maalintiina dadaalka aad muujiseen iyo juhdigiina maanta ayaa la idin gudi doonaa la idinku abaalmarin doonaa hadiyad midka ugu qaalisan insha Allah wixii ka dambeeyana ardayda waxa idinku dhiirigelinaya inaad dadaashaan waxbarashadiina saraha u qaadaan hamigiina inaad muujisaan waalidiintiinuna maxaa la dhahaa riyo ay sugayeen waay riyadooda dugsiga Ubaya bin Kacab Primary Secondary School ee Kuwait ayaa ku suntan dugsi waxbarasho sareeya isla markaana ardayda sare loogu qaada dhinaca tacliintooda iyada oo sanad walba sidan oo kale ardayda lagu dhiirigeliyo kaalmaha hore oo ka soo galaan imtixaanaadka iyo sidoo kale darajooyinka sare oo ay ka helaan dhinaca tartamada uu dugsigu qabto.